munaasabad lagu soo gabagabeynayay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 isla markaana ay ka soo wareegatay 75 sano ayaa waxaa lagu qabtay xarunta Kumaando Buluusiya ee magaalada Muqdisho waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya xubno ka socday dawladda Soomaaliya iyo marsharaf kala duwan oo munaasabadani lagu casuumay intay munaasabadu ay socotay fanaaniinta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay goobta ku soo bandhigeen heesooyin ka hadlayay muhiimadda ay leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay ka qabteen gudaha Soomaaliya ugu horeyn goobta waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko waxa uu sheegay in hambalyo uu u dirayo ciidanka booliska Soomaaliyeed xaasaskooda iyo caruurta ay dhaleen meel walba ay joogaan isagoona sheegay in muhiim ay tahay in cadaaladda ay ka shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale waxa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii ay u tayeyn lahaayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed isla markaana ay u adeegi lahaayeen bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin mudayaan iyo marweyn wasaaradda amniga gudaha oo gudanaysa waajibaadkeeda ay qaran ku hayso waxay mar walba la garab taagan tahay horumarinta tayeenta kobcinta booliska Soomaaliyeed iyo sida ay u heli lahaayeen daryeel agab isgaarsiin u suurageliya inay gutaan waajibaadkooda iyo xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed sida hadaba loogu miradhaliyay arrimahan soo sheegay wasaaradda amniga gudaha waxay qaaday talaabooyin muhiim ah sida u kurgalka xaaladda dhabta ah ee booliska Soomaaliyeed ku sugan yahay xaq ciidan agab dhismayaal daryeel xirfadeen waxaana soo dhameystirnay wajiga koowaad ee baaritaanka u kurgalka marxaladda booliska taasoo ah ora barnaamijkaas waxaan sameynay sanadka hore December waxaan soo dhameynay booliska federaalka telekoobkooda hadda waxaan cadeyn karnaa taliyaha dhinaciga taagan booliska federaalka inta ka koobihiin tir ahaan inta rag iyo dumar ah darajada kala sitaan sidoo kale xirfadda iyo aqoonta ay soo qaateen ama tababarada ay soo qaateen intaas waxaa dheer inta howlgabka ah ama inta dhaawacmay inta agoonta ayagana cadeentooda waa haynaa marka intaas dhameeyna waxaan u gudbin feeska labaad oo ah maamul goboleedyada dawladda Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay sheegtay inay wado qorshe ay ku dadaalayso sidii ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay u wada shaqeyn lahaayeen marka laga gaaray tayada iyo tirada booliska maanta Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa dhammaan wasaaradda amniga iyo mataqaana taliyaha booliska iyo dhammaan saraakiisha sare iyo dhammaan dawladda xaasaskooda dhammaan waxaan leenahay hambalyo insha Allah sanadkan sanadkiisa gaara waxaan Soomaaliyeed ugu baaqo in waddanku amni yahay waxaan ugu baaqayaa in ay soo hiran karaan runtii waddanka amnigiisa ciidamada booliska Soomaaliyeed ay maanta gacanta ku hayaan marka gobolka Banaadir laga runtii amniga gobolka Banaadir aad u sugan yahay taliska gobolka Banaadir ee amniga madaxda u ahna Cabdiraxmaan Waabri Sum News Muqdisho